Hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's your boy Ahmed. I hope you all doing fine. I'm doing great. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Can't complain. Life's too short as usual. And walaalayaal maanta waxaan idinku imi laba su'aalood inay iga jawaabtaan. Su'aashada koowaad intaan idin sheegin tan labaad iyo tan koowaad halkan waxaan uga mahadnaqayaa wada jiray wax qabad groupkan la page-kaas follow like aad waan runtii aan idinku support garaynaya in groupkaas part ka noqotaan wada jir iyo wax qabad. waa group volunteer oo Europe iyo qaaradaha adduunka dhan jooga oo runtii horumarka Soomaaliland ka shaqeey doona halkan waxaan ka mahadnaqayaa Maxamed Abdi waa inanka video ka sii horeysay comment dheer igu qoray soo diray videoga oo runtii ka hadlay maxaa wadanka noo kala qaybinay power sharing way hargeysa power ku jooga gurtidii baarlamaankii dawladii wasaaradihii wixii dhan hargeysa ka ergaabo jooga ama ka burca jooga warqadii haduu rabo inuu saxiixdo like back in the days xamar sidii odayaashii adeerradeen sameey jireen abayaashii sameey jireen haduu warqadii rabo inuu university warqad ka saxiixdo wax noo diri jiray xamar oo noo diri jiray that is another one arka mistake another runtii mistake weyn waan u arkaa oo runta dhibaato weyn ka iman karaysa halkaasna in odayaasha iyo dhalinyarada iyagoo isku duuban inay xaliyaan sidii dhibaatada noo xalin lahaa okay let's come back to the business su'aashada koowaad waxa weeyaan su'aashada koowaad waxay ku xisaabsan tahay salaadiinteena iyo caaqiladeena siyaasiyiintu markasta waxay dhahaan siyaasadda ay soo faragelin waayo let me know please I'm not going to say anything please let me know share the video like the video salaadiinteena iyo caaqiladeena waay markasta siyaasadda u tiraahdo dalka siyaasadda hoggaanka haya ama hoggaanka siyaasadda ku dhex jira markasta waxay dhahaan caaqilada iyo salaadiintu ay soo fargelin siyaasadda please let me know idinkan idin dhaafiya taas leave a comment share the video su'aashada labaad waxa weeyaan baarlamaanka iyo gurtida maxaa salaadiinta caaqiladu gurtida u fadhiisanayeen iyo baarlamaanka u fadhiisanayeen waayo gurtida baarlamaanka rag badan oo sharaf leh way ku jiraan this is not attack it's a knowledge sharing waa idin la qaybsanaya waa waxyaabaha kaliya iska fakarayeen you know marka idinka la share gareynaya waayo maskaxdaada sometimes waa inaan la share gareysa dadka bini aadanka ah how they see if you inaa isku fakartiin waa inaa marka dhalinyaradan sharafta leh social media runtii waxyaabo badan inoo fududeeyay iminka for example video I know ina su'aalo jawaabo fiican soo siinaysan oo jawaabo ku xisaabsan wadanka magaranaysa waxyaabo badan ogeyn marka waa idin la share gareynayaa sida oo aragtaan idinku dhalinyaro anigu waxaan u arkaa Axmed ahaan gurtida inaan fadhiisiyo salaadiinta iyo caaqilada even baarlamaanka inaan fadhiisiyo salaadiinta iyo caaqilada waayo salaadiinta caaqiladu teeda wan halkeena soo gaarsiiyay teeda ma ka shaqeynay horumarka Soomaaliland hadii dhibaato timaado siyaasi xamu bedeli kareen caaqilada iyo salaadiinta wax badbaadiya oo dhibaatada dhex gala oo heshiisiya dadka oo xumaanta ka ilaaliya oo cadawga soo difaac soo taageeranaya ka hortaga oo dadka runta u sheega marka anigu waxaan ka hadlayaa caaqilada iyo salaadiinta xaq bayna ku leeyihiin we should protect them we should show them positionkii xaq u lahaayeen wayna siinaa saas anigu arkaa marka walaalayaal waxaan leeyahay let me know idinku soo aragtaan waan idin salaameynaa kulligiin hablaye inama dhalinyarada reer Soomaaliland meel kasta joogaan waan idin salaamay waxaan idin leeyahay saas kaga baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh peace Somaliland ha noolaato